waxaan rabaa maanta inaan caddeeyo in aan ku darnay hal bil oo kale oo ah diiwaangelinta dadweynaha gobolka Banaadir. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. maanta bishu May waa 15keeda sanadkuna waa 2025 waxaana joognaa xarunta guddiga madaxa bannaan ee doorashada qaranka ee Sohdimaha ee magaalada Muqdisho. shirkan jaraa'id waxaan u qabtay inaan warbixin guud ka dhiibo guud ahaan diiwaangelinta dadweynaha gobolka Banaadir oo ay si habsami leh uga socoto doorashada soo socotay golaha deegaanka ee dalka dhici doonta dhawaan. run ahaantii si waxay u socotaa xawli ah si nabada ilaahana mahadaas iska leh dadkuna amoodid inay ayagoo xor ah ay rabaan inay isku diiwaangeliyaan doorashada soo socota. waxaan bilownay diiwaangelinta dadweynaha gobolka Banaadir bishii la soo dhaafay April 15keeda maanta bisha May waa 15keeda waxaan rabaa maanta inaan caddeeyo in aan ku darnay hal bil oo kale oo ah diiwaangelinta dadweynaha gobolka Banaadir. sababtaan ugu darnayna ay tahay kow saa la socotaan markaan bilownay bishii April 15keeda hal mar kama aynan wada bilaabin dhammaan degmooyin gobolka Banaadir. waxaan ka bilownay hal degmo waxaan ku xijinay 3 degmo waxaan ku xijinay 3 degmo kale waxaan ku xijinay 6 degmo waxaan ku xijinay 3 degmo kale. wiil ka hor 7 bishaan ayaa si fuul ah gobolka Banaadir uga bilaabatay diiwaangelinta dadweynaha ee doorashada soo socotay golaha deegaanka insha Allah taala. marka annagoo taa ka ambaqaadeena codsiga nooga yimid iyo qorshaha socda waxaan go'aansanay inaan hal bil oo kale ku darno diiwaangelinta dadweynaha doorashada soo socota ee gobolka Banaadir. waxaan kaloo idin sheegayaa insha Allah taala aan rabaa inaan uga faa'iideysto in aan bilownay qalabkii inaan u daabulno degmooyinka maamul goboleedyada ee Baydhabo, Jowhar iyo Dhuusamareeb. sidoo kale waxaan bilaabi doonaa si degdeg ah inaan SCC Khaatume Laascaanood caasimadda aan qalabka u geyno. waxaan bilaabi doonaa inaan diiwaangelin ka bilaawno dhawaan deegaanada iyaga ah isteediyada Hirshabeelle, Galmudug, Koonfur Galbeed iyo SCC Khaatumo oo hadda ku soo biiray dhawaan isteediyada cusub oo dalka jira. waxaan sidoo kale aadi doonaa state Jubaland gobolka Gedo degmooyinkiisa insha Allah taala. shalay waxa ku ekeed oo bishii May 14 diiwaangelinta ururada siyaasadda. waxaan haynaa 30 urur oo si rasmi isku diiwaangeliyay inay noqdaan ururada siyaasadda Soomaaliyeed oo diyaarka u ah inay ka qayb qaataan doorashada soo socotay golaha deegaanka iyo doorashooyinka dambe ka dambeyn doona insha Allah taala. waxa on the process ah ilaa 5 urur oo wali waxooda aan dhameystirmin oo fursad u siinay inay 5 bari oo bisha aan ku jirno May 20keeda ah inay ku soo dhameystiraan dhammaan shuruudihii laga rabay. ururada siyaasaddana waa diyaar oo 30 ah iyo nambarada kale gadaal uga darsama. diiwaangelinta dadweynahana waa socotaa tan gobolka Banaadir oo meel fiican maraysa. goboladana waa bilaabaynaa wiiga soo socda ugu dambeyn insha Allah taala isdiiwaangelintooda iyo qabanqaabadooda meel fiican maraysa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كافي هوسبيتال وكافيها بلشدة دان كستا أو عافمتك بلشدة كوحدنا ومركزتا إيو ميل كستا.